Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal, maanta waxaan soo qaadanaynaa ama casharkeenu ku saabsan yahay faa'iidooyinka laga helo sadaqada. Sadaqadu waa wax aad iyo aad u muhiima oo diinteena suuban ay in badan ka hadashay. Faa'iidada sadaqadu waxa aynu soo koobi karna maaha. faa'iidooyinka sadaqadan waxaa ka mid ah walaalayaal, rasuulka calayhi salaatu wassalaam ayaa isagoo muslimiinta ku dhiirigelinaya waxbixinta cadeeyay in sadaqadu ay bakhtiiso dembiyada ama ay tirtirto dembiyada sida biyuhu u bakhtiyaan dabka. Waxbixinta iyo sadaqadu waxay qofka ka ilaalisaa balaayada iyo sharka oo dhan. Sadaqadu waxay ka horjoogsataa qofka 70 dhinac oo xumaan kaga imaan lahayd ayay ka difaacdaa. Walaalayaal, Caaisha radiyallahu anhu ummul mu'miniin oo sooman ayaa waxay aragtay miskiin cunto doonaya. Waxa u yaalay guriga oo kaliya in yar oo kimisa. Inantii xaafadda la joogtay Caaisha ayaa tiri si miskiinta kimista inoo taalay. Inantii ayaa yaabtay oo tiri, Caaisha, kimis wax cuntaaba in yar oo kimisa inoo taalay miyaynu siinaa? Caaisha ayaa ku tiri, haaye sii. Arrinkii sidaas ahaa ayaa markii casarkii ahayd, Caaisha radiyallahu anha waxaa loo keenay neef ariya oo hadiyada. Markaas ayay Caaisha tiri, cun kanaa wanaagsan waxa aan bixin.